waxaan rabay horta marka ugu horeyso waxaa jira barnaamij laga hadlayay baryahan oo ku saabsanaa arrin dil ah oo gubitaan ah wiil iyo gabar isjeclaaday barnaamijkaasoo aad iyo aad iyo aad moodid in uu baraha bulshadana u qabsaday dadka soomaaliyeedna aad maaragtay muxuu ahaye uga wada xumaadeen marka waxaan rabay inaan horta marka u horeyso inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inaan u tacsiyeeyo dadkii iyo eheladii dadka ku dhacay oo uu ka dhintay ninkii muqaabilka ahaa guud ahaan inaan horta si gaara ugu tacsiyeeyo qodobka tacsiga marka aan ka gudbo waxaa jira soomaalidu dad wada dhashay weeyo waa dad isdhaqan yaqaano waa dad aan meel kala jirin waa dad isku luuqad ah waa dad isku diin ah waa dad isku deegaan ah waa dad meel ay ku kala bixi karaan aan jirin waas marka hadday tahay oo dhibaato dhacday dhibaatada dhacday waxaa loo baahan yahay in aan la siyaasadaynin oo laba qodob laga abaaro qodobka koowaad dunuubta dhacday iyo derbiga in la baaro oo booliiska ku shaqada leh arrintaas loo daayo qodobka koowaad wakaa qodobka labaad arrinta wiilka iyo gabadha ku saabsan dadku waa dad wada soomaali ah si kasta wax lagu kala heli karaa in aan la siyaasadaynin oo qaab kale arrintii iyo weji kale aan loo yeelin loo daayo dadka deegaanka ah oo wada dhashay oo xeelbeegsiga leh oo si kasta wax iskaga galaan oo maxaanku idhaahdaa qaab kasta ay wax ku kala qaataan oo odayaasha dhaqanka oo xeelbeegsiga arrinta lagu celiyo oo aan la sii sidnaynin oo aan la sii fasahaadinin arrintaas marka qodobkaasna intaasaan ka qabaa qodobka saddexaad waxa weeyo gabar waa la guursadaa laakiin gabadhu waa inay sodoh yeelato waa inay sodob yeelato waa inay teedi yeelato waa inay dumaashi yeelato waa inay habaryar yeelato waa inay eedo yeelato waa inay abti yeelato intaaba dhaqanka soomaalida iyo in kasii badan ayaa xiriirinaya marka waxaan aanan la qaynin anigoo soomaali ah soomaali ku dhashay dhaqanka soomaalida aqaano genaraal ah weligeysigaas fara aanan noqonin dalka aanan ka bixin waxaanan ii xurtamaynin oo aan la qiwaayey gabadhii hooyadeed waa xiran tahay ayadiina waa la aroosaya gabadh hooyadeed xiran tahay see loo maxaanku idhahdaaye qaabka soomaaliga iyo dhaqanka markii la fiiriyo see xiran looga dhiganayaa gabadh hooyadeed xiran tahay see niyadeedu noqonaysaa ilaa meesha masiibaa ka dhacday adigu seeseed maxaanku idhaha qof kula nool oo kale ay u noqonaysaa arrintaas marka waxaa wanaagsan in barnaamijka sistamka dawliga ah inta laga saaro oo xildhibaanadan iyo dadkan dawladda iyo sistamkan iyo arrintan meediyaha iyo waaliga inta laga saaro arrintaas xeelbeegsi loo celiyo gabadha xiran la soo daayo wiilka iyo gabadha laisu aroosiyo la wada fadhiiso masiibaa dhacday masiibada dhacday cidna ma soo celin karo ninkaas walaalkeena waktigiisibaa dhammaaday wuu dhintay cidna hadda ma soo noolayn karto intaan nool oo taagan baa talo u baahan in
markaa la wada fadhiisto xeerdoodii la sameeyo gabadha lafteeda gudubreed loo bixin karaa dhibaatada dhacday la-aangeed ayuu qabiilku gudubreed u bixin karaa dhaqanka soomaalida markii la fiiriyo oo la siin karaa reerka la siin karaa mid kalaa loogu dari karaa mid saddexaad baa loogu dari karaa mid afraad baa la siin karaa mid shanaad baa la siin karaa dhaqanka soomaalida sidaa wey waxaan marka aada uga soo horjeedaa in arrinta la siyaasadeeyo in qaab aan waafaqsanayn dhaqanka soomaaliyeed in la waafajiyo oo maxaan ku idhahdaaye gabadh hooyadeed xiran tahay oo walaalkeed inuu xiran yahay laga yaabo oo reerkoodii oo dhan gebagebo ku jiro oo wajiiji lagu jiro oo dembigii kala cadaanin oo kiiskii maxkamad la geynin oo aan la baarin in lakaxinta la sameeyo la yidhahdo gabadhii wiilkii waa lasu aroosinayaa bug arrintaas waxa weeye waxbay sii kala fogeynaysaa aniga ra'yiga aan qaba kaas weeyo waa shaksi qofna kuma matalahayo aniga shaksigayga khaaska ah oo soomaalinimo oo muwaadinimo ayaa weeyo midka aan ka hadlahayo oo shaksiga aniga iya sida ila qumanna waa qaabkaas in loo celiyo arrinta xeerbeegsiga iyo dhaqanka soomaalida gabadha gudubreed baa loo bixin karaa wiilkana waa la siin karaa aada iyo aad baad umahadsan tahay waaya marka jenaraal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo adiga ma waxaa kuu muuqda in la siyaasadaynayo yayse kula tahay arrintani way ku lug leeyihiin in la siyaasadeeyo waa haddii ay jirto in siyaasadayn arrintaas lagu samaynayo ay ku muuqato wallahi cid hadda aniga aan eedaynaya ma jirto laakiin waxaa iga dhex muuqda dad badan oo mas-uuliyiin oo kala duwan ba arrinta ka dhex muuqdo marka dadkaa badan oo mas-uuliyiinta oo kala ka muuqdo yani arrinta ka dhex muuqdo waxaan isleeyahay weli waktiga ay soo geli lahaayeen ma aysan gaarin haddii xataa xaaladda la gelaayo oo xaaladda anigaan hadda maanta kula hadlayo waan geli karaa xaaladda laakiin xaaladda qaabkaan ku geli karo waa inay noqotaa qaab islaamnimo qaab dhaqan qaab oo maxaan ku idhahda aan wax raadinayo laakiin inaan xaaladii intaan kor u sii raro meediga u yeero durbaana tumo qaab sameeyo meel ay tacsi taallo oo xarig yaallo oo baaris taallo oo dhimasho taallo in arrintaas waxa weeyo qaabka sistamka nidaamka dawliga ah marka la fiiriyana sax kuma aha sistamka nidaamka baarista iyo booliisnimada marka la fiiriyana sax kuma aha sistamka nidaamka xeerbeegsiga iyo dhaqanka soomaalida marka la fiiriyana sax kuma aha barnaamijkaas marka waxaan isleeyahay anigu hadda xilqaaga ma eedeynayo laakiin waxaan isleeyahay barnaamijkaas uma wanaagsano in meediyaha la taagnaado qaabkaa loo sameeyo sistamkaa loo sameeyo waxaan leeyahay arrinta ha loo celiyo dadka dhaqanka dadka wada dhashay dadka isku deegaanka ah dadka waxa isasiin galo dadka talada ay ka go-o waa mahadsantahay waayahay marka adiga ka jenaraal ahaan marka aada fiiriso xalka ugu dhow ee arrintani labada qoys dhex martay ninka lagu gubay marka aad fiiriso maxay kula tahay ma waxay kula tahay in qisaastii la fuliyo mase in reerihii wada fadhiistaan oo ay ku heshiiyaan in qisaas la fuliyo ama ay iyagu kala qaataan diyo iyo si kale u heshiiyaan marka maxay kula tahay halka ugu dhow maxay kula tahay hadda arrinta weli ma muuqato in labadii tol wada fadhiisanayaan hadaladii ugu dambeeyay waxay ahaayeen gabadha aabaheed ayaa hadlay waxa uu yidhahday anigu gabadha ma aanan bixin waa la masaafaystay dadkiina way hadlayaan waxay leeyihiin gabadha dadkeedii baana siiyey arrintana dhanna aroos qaran baa laga wadaa waxaa la leeyahay aroos qaran baa loo samaynayaa markaad fiiriso halka uga dhow maxay tahay horta walaal waa mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan saddex qaybood ugu kala qaado qodobka koowaad qaran marka la yidhaahdo qaranka waa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed marka aada magacooda ku hadlayso oo qaran leedahayna waa in ay jirtaa wax munaasib ah oo dalka ama lagu soo kordhiyey ama qofka uu dalka u qabtay waa inay jirtaa oo arrintaas waxa weeye qof ama taariikh leh ama qaab leh ama system leh ama dhimo leh ama xorriyad ama system waa inuu jiraa gabar iyo wiil baa iscaashiqay
dunuub baa ka ratibantay dembi baa ka ratibmay marka dembigii ka ratibmay baa u baahan in la xalliyo in aroos qaran la dhigo ma aha kuma jirta meesha ma ku jirta taas waa qodob oo systemkan barnaamijkan lagu leeyahay aroos qaran baa la dhigayaa sax ma aha sababtu waxa weeye dunuub baa meesha ka dhacday geeridaa timid xabsidaa yimid gabagadaa timid soomaalidu waxay dhihi jirtay war aan kula hadlee gabagabada iga qaad ereygaasaa la adeegsan jira war aan kula hadlee gabagabada iga qaad markaad gabagabada iga qaad ayaan kula hadlahaya marka dhimashaa timid gabagadaa timid xarig baa timid aroos qaran baa la sameynaya ma isgeli karaan iskumada aadana lamaanihii qaranka marka in loogu yeero ka waranayana maya ma isgeli kartaa lamaanaha qaranka marka loogu yeerayo waa inay qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wax ay ku qancaan ay sameeyaan maxaa marka la sameeyaa wiil gabar baa iscaashiqay dunuub baa ka ratibmay dembi baa ka dhashay meesha dib baa ka dhacay dhimashaa ka timid kiis baa ka bilowday ninka wiilka adeerkiis baa dhintay gabadha adeer baa la xiray kuwii kaloo la socday baa la xiray foolkaanaa qaraxday xaggeen marka arooska qaranka imaanaya waa in horta foolkaanada maxaa loo helo waay taas waa qodobka labaad oo leedahay maxaa kula quman aniga waxa ila quman waxaa weeye qofka gabadha iyo wiilka in la siiyo laba in loo celiyo xeerbeegtiga oo dadka xeerbeegtiga oo wada dhashay ay wada hadlaan markay wada hadlaan gabadhii oon cidna daba soconin odayaasha xeerbeegtiga oo galay dhibka galay gabadhi waxay u bixinayaan way bixinayaan oo waan rabaa inay bixinayaan xeerka Soomaalidan baa qaar saddex wixii dhacay oo ka ratibmay wiilka iyo gabadha ka ratibmay oo xeerbeegtiga ay ka fariisteen oo gabadhii lagu bixiyey qasaas markaas ma imaan karto waxay imaanaysaa shareecada islaamka in loo bandhigo la fiiriyo duunta la ogaado dadka waxay ku qanacsan yihiin iyo qaabkooda iyo sistamkooda iyo wixii horey heshiis dadka Soomaalida oo kale heshiis baa ku yaala lagu heshiiyo markaa ka bacdina aayarko gabadhiina wiilka loo aroosiyo biyadii ninkana la bixiyo oo tartiibto dadkii gacmadii jir hoos baa loo dhaqaalay dadka meel ma kala jeed ayada oon waa wareydaan socota ayna jirin qaabkaas in loo isticmaalo qodobkaas waa qodobka kale ila quman qodobka saddexaad oo ila quman waxaa weeye dowladda Soomaaliyeed oo qaranka ah oo ciidamada leh oo xildhibaanada leh oo wasiirada leh oo ra'iisul wasaaraha leh oo madaxweynaha leh hal meel bes ay ka soo geli kartaa meesha ay ka soo gashay waxaa weeye waxaa dhacay dil baa dhacay dadkii gacanka jiglayaalka ah in la qabto xabsiga lagu hubsado dabadeedna labada beelood oo gabadha iyo wiilka ay arrintu ka dhacday waxa ay ayagu keenaan oo ay maaragtay muxuu ahaa ay isku soo raacaan markaas ayaa tartiibto yaa la fulinaya laakiin wixii inay laablakac noqoto oo lala boodo oo meediya la tago oo wax laisku sawiro oo xagga la tago oo xagga laga qaybiyo oo